وهاجا daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka sahanka wararka telefishinka Tayo TV xaruntiisa Muqdisho markana faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya weeraradii isxigay ee ka dhacay magaalada Muqdisho dad goobjoogayaal ah oo la hadlay telefishinkan Tayo TV ayaa waxa ay ka hadleen khasaarihii soo gaaray goobahooda ganacsiga ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ilaa xalay ilaa maanta duurkii howlgal ay ka qayb qaadanayeen ka waday agaarka halka uu qaraxu ka dhacay iyagoo la dagaalamayay dawladda sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Alpha Group kuwaas oo markii dambe soo afjaray howlgalka qaatay muddada ku dhow 20 saacadood oo ay al-shabaab ku qaadeen halkaasi ciidamada Alpha Group ayaana ku dhawaad 5 galabnimo ee galabta waxay ku guuleysteen inay soo gabagabeeyaan hadlay waxa uu sheegaya saaraha uu geystay qaraxa goobtiisa ganacsiga waa maasantahay goorayada baaro 2 iyo 12 daqiiqo ayaa mar qura waxa isbedelay jawiga meeshii aan ka shaqeynay oo dhan dukaankan quality point la yiraahdaa nasiib wanaag maalmo ka hor sidoo ah iyo maanta sidoo yahay way kala duwan tahay si ay ku soo gaaraan wararka iyo barnaamijyada aynu soo gelino YouTube-kan fadlan subscribe saar siina gambaleel saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda arrimaha isboortiga dhaqaalaha iyo qubana kale oo idinkugu talagalay Tayo TV 24